sheekadana caawa waxay ku saabsan tahay lacagta iyo Qur'aanka. nin hantiila ahaa oo waxba dhalin, qaraabana lahayn, laakiin qasrigiisa waxaa joogay shaqaalo badan. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu isugu yeeray dhammaan shaqaalihiisii casho ayuu ku casuumay. Cashadii kadib, qof walba wuxuu ag dhigay kitaab Qur'aan ah iyo bashqad lacag ku jirto. Kadib ayuu weydiiyey inay kala doortaan kitaabka Qur'aanka iyo lacagta. Wuxuu ku bilaabay waardiyihii guriga ama qasrigiisa, wuxuuna ka dalbaday inuu kala doorto asagoo aanan xishoonin. Waardiyihii wuxuu ku jawaabay, waan jeclaan lahaa inaan kitaabka qaato, laakiin sida wax loo akhriyo ma aqaano. Waxaa qaadanaa lacagta, ayada ayaa faa'iido badan. Kadib waxaa ku xigay ninkii beerta daryeeli jiray. Wuxuu dhahay, xaaskayga iga xanuunsan, lacagaana u baahanahay si aan u daaweeyo. Maahane, Qur'aanka ayaan qaadan lahaa. Waxaa ku xigay ninkii cunada karin jiray. Wuxuu dhahay, waa jeclahay inaan wax akhriyo, laakiin jaanis uma hayo sababtoo ah shaqada igu badan. Lacagta ayaan qaadanaa. Waxaa u dambeeyay wiil dhalinyaro ah oo xoolaha xanaaneyn jiray. Ninkii hantiilaha ahaa wuu og yahay in wiilkan uu yahay wiil faqiir ah, wuxuuna ku dhahay, waa hubaa inaad lacagta dooran doontid saacno u iibsato iyo kabo cusub. Wiilkii wuxuu ku jawaabay, sax waay, way igu adag tahay inaan kabo cusub iibsado ama dooro aan hooyo isla cunno, laakiin waxaan qaadanaa Qur'aanka sababtoo ah hooyo waxay i tiri hal kelimad oo Ilaahay dhahay waxay ka faa'iido badan tahay dahabka, dhadhankeedana wuxuu ka macaan yahay malabka. Qur'aankii uu soo qaatay, markuu kala furay wuxuu ka dhex helay 2 bashqad. Labadii bashqad mid ka mid ah waxaa ku jiray lacag dhan 10 jibaar lacagtii ku jirtay bashqadii miiska loo saaray uu ka soo tagay. Bashqada kalena waxaa ku jiray warqad caddeyn ah in uu dhaxli doono hantida ninka hantiilaha ah qaarkeed. Ugu dambeyn, ninkii hantiilaha ahaa wuxuu ku dhahay, qofkii Ilaahay malo wanaagsan ka fishaa ma hungoobo.